labada madaxweyne waxay yeesheen kulan dheer dhowrkii beri la soo dhaafay oo isla joogeen madaxweyne wuxuu yimid shirka dadka adduunka looga hadlayay oo labada madaxweynaha Kenya uu isagu martigelinayay kadibna labada madaxweyne maanta waxay yeesheen kulan gaar ah markuu dhamaaday kaleeto oo waqti badan isla joogeen waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo labada ummadood oo walaalaha ah waxayna ku heshiiyeen in xiriirku loo soo celiyo sida hore uu ahaa intii aan gumagumada waayahan jirtay aysan bilaabmin gaar ahaan in muddo asbuuc gudaheeda diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya xamar ka imaanaya ay toos Nairobi u yimaadaan oo wajaraysan soo marin in dadka Soomaaliyeed sida uu dhigay madaxweyne Uhuru ay viisaha Nairobi airportkeeda ay ka qaataan oo aysan safaaradaha soo marin waxyaabahaas ugu waaweyn iyo in labadu waxay aad u tilmaameen xiriirka labada dal ka dhaxeeya soo jireenka ah sida labada isu kaalmeeyeen madaxweynaha wuxuu u mahadnaqay dawladda xukuumadda Kenya iyo shacabka Kenya iyo madaxweynaha Kenya intaba sida Kenya ay uga qayb qaateen sugidda nabadgelyada iyo amniga Soomaalida waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal oo walaalaha ahi uusan maaragtay safgarawaa marmar dhacay inuusan wax u dhimin uusan kala gudin dadka Soomaaliyeed iyo dadka Kenya waa gartay in xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen Kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go'aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yiraahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dawladda u shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaato Muqdisho waxa intuba ay ku andacoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwadii badda oo dad badanna hadda ay aad u hadalhayaan marka maxaa lagu qanciyay Kenya oo Soomaaliya aqbashay badii kayskii badda iyo baddu jiray madaxweynaheennuna si cad u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiray uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin marka iyadoo arrintaa la ogyahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu muujiyay kalsoonida in arrinta ICJ lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan arrinta dad badan ayaa su'aalo ka keenay bal maxaad arrinta kale uga jawaabaysaa walaa horta dadku su'aalaha way iska qabi karaan way isweydiin karaan Soomaalida dhaqan u tahay in maanta dhan su'aalaha badan dadku hadda waqti u hayaan su'aalo isweydiiyaan laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa ku cadeeyay anoo soo xigaraya hadalkii labada madaxweyne yiri adiguna waa si askayso hadalkii wasiirka arrimaha dibadda yiri baa sheegtay intuba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro maxkamadda kala saarayso laakiin ay labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsanaado oo walaalo ahaadaan marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waqtigeena ka qaadanaysa inaynu ku celcelino warkaas intii muddadii arrintaani ay jirtayna anigu keligay iska daa madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama AU-da ama meel kasta aanu tegaynay waa lagu celcelinayay mowqifka Soomaaliyeed maxkamadda haddana waa sidiisii maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo gabadha wasiiradana waa sheegtay inay tiri marka hadda walaalow su'aal lagu weydiiyaa ka jawaabi kartaa laakiin dadku haddaan idhaahdo qofkan Jamaal weeye
oo inta qofkii ugu soo noqdo yidhaahdo qofkani jamaal miya waxa kaliya aan dhihi karo waxa weeye waa jamaal taasna waa kuu sheeg waa tahay dabcan dadku waxyaabo mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo waadna ku mahadsan tahay arrin kale aan jeclahay mudan wasiir inaan ku weydiiyo maxaa mugdi ku jira hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay twitterkeeda kusoo qortay ayaa mugdi ku jira oo dadku aysan si caadi u fahmin marka waxaa kuu sheegay horta anigu dhigeed baan ahay marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino gabadhuna wasiir way ana wasiir baana waxaan kuu sheegaya wixii lagu wada hadlay waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka waxay ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaan kaloo jeclahay mudan wasiir inaan ku weydiiyo Kenya ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya dhawaantana doorasho ayaa ka dhacday Jubbaland oo dawladda Soomaaliya Kenya way dacweysay sidaan wararku ku haynay oo ay ku xadgudubtay duulimaadyada hawada Soomaaliya arinta isla qabsiga Kenya iyo Soomaaliya dhinaca Jubbaland marnaba madaxweynayaashu ma soo hadal qaadeen haddii se la isku soo hadal qaaday ma jiraan waxyaabo la iska yiri waadna la wadaagi karayso tan ku sheegay waxa lagu heshiiyey wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadi lagu soo celiyo marka arinta waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulanka isagana waan laga heshiiyey macnaheedu waxa weeye wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhex maray waxaa lagu heshiiyey in maaragtay maxaa la yidhahdaa la iska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yidhahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamadduna aysan saamayn xiriirkeena aysan si negative ama si dhiba aysan u saamayn sidaas ayaa lagu heshiiyey labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen marka laba saacadood wax kastay ka sheekaysan karaan Soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama gobolka ku saabsan waxaas ku sheegay waxa lagu wada heshiiyey iyo waxa laga wada hadlay iyo go'aanka la gaaray aad baad mahadsan tahay wasiir waa mudan tahay Jamaal